أهدي سكرية أهدي سكرية أهدي فلوس سكري هاي فلوس مرتا سكري عدا يا سكري عدا كل سمرتا والسلام عليكم وبركاته واو هاي كال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الكرام وإذن سلام عليكم قالنا ميل والبعدون كانت كجوكتين وولاشينا ومريم سودواد أيا إذن لي هاي هلقد نقدا ونسان وإسكاتش فاميلي iyo dacwo family soo dhawaad walaalaha qaaliga waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaa caafimaad qabtiin see tihiin ma fiican tihiin alxamdulilah waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaa caafimaad qabtiin anagana waa idin fiicannahay alxamdulilah marka ugu horeyso walaalaha qaaliga aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin kommentiyadiina quruxda badan isugu jira dhiirigelinta iyo ducada aad ayaan idinkaga mahadcelineynaa inta xanuunsan allah caafiyo inta caafimaad qabtana allah u ziyaadiyo walaaleen muslimiinta ee reer falastiinna ilaahay ha u gargaar ayaan leenahay insha allah walaalaha qaaliga intaas kadib maanta waxaa idin wadaa vlog yar oo qurux badan fahanteen haddana waan soo baxna waxaan soo aadnay dhinacaasi suuqa intaan gudaha u galin ka hor waxaan soo maray dukaan yar oo lagu gado madaawaadka waxaan kasoo qaadanaya malab iyo xabasoodi iyo diinsi iyo waxaasaan ka doontay waayo Zeynab degana iga yar qandhaneyd oo hergab iyo waxaas iga hayay soo malabkaas iyo xabasoodi inaan iskugu daraaraba maadaama cimilada isbedeshay oo baryahan roob u da'ay laazim ilmaha hergab iyo waxaas ku imaanaya ma fahanteen marka hadda waa kasoo baxay dukaankii waa kasoo dhamaanay waxaan soo maray meesha hilibka ayaan soo maray asna hilibaa hore aga qaatay kadibna waa baxnay tugtugaan qaadanay haddana sababtoo ah meesha u soconna hadda way dhowdahay laakiin tugtug sababta u qaadanay waxay tahay sakariicadana la socdo fahanteen soo sakariicadana suuqa dhexdiisa ma lagu socodsiin karo marka saas dartiisa tugtug kale u qabsanay haddana time aan ugu sii socdo waxaa waaye waqti 6 saac ah waa fahanteen ani orod le ku jiraa ilmaha haddana keligooda guriga aga soo tagay hooyaday korka fiir dhahay laakiin gurigooda ay fadhiyaan marka zakariicada inta waxa u keenay asaga waxa gadooyaa meeshaneeti waayo wuxuu jecel yahay inuu maanta dhan wax kabiyo wax garaaco burus yar oo guriga yaalo abu maxamed wax ku sameysto buruskaas oo markasta ku dhagan wuxuu leeyahay burusa u baahanahay buruskan ii soo deji buruskii uu oynaa ma fahanteen soo buruskaasna bir waaye yani hadduu qaato ilmaha uu ku dhufan karaa asaga isku dhufan karo soo marka anigana shaqo waa ka qabsan waayo maanta dhan waa igu daba dhagan yahay igu daba oynaa maanta dhan wuxuu ku leeyahay soo deji buruskaas ma fahanteen cunuga marka hadduu kugu mashquulsan yahay maanta dhan kaa daba oynayana wax ma qabsan kartid soo marka anigoo isdhaha intay aga keentaa ninkan burus asaga iyo buruska kala maharayaane ma fahante marka nawaalsanta instagramkooda ku arkay buruskanayta ay soo saareen waxa waaye toys yar oo ilmaha ay ku dheelayaan oo buruski biinsadii wixii oo dhan ay ku jiraan waa ma fahanteen soo marka sidii inta ku keenay asaga ma ugu jirta waa faraxsan yahay oo buruski markii gacanta loo saaray ma fahanteen shaqo fundiyeed le u daaninkanayta maanta dhan wax le inuu sameeyo uu jecel yahay haddana fundiyaasha markay guriga imaanayaan wax noo xiraayaan ama sariir ha noqoto ama armaajo ha noqoto haddana labada beri ugu dambeysay markii jikada iyo waxaas la dhisaayana aad ugu mashquulsanaa saas u daba socday fundiyaasha ma fahanteen soo marka wixii uu la qabsaday marka farastas xataa soo qabto uma jeedo buruskaas ku maqayaan buruskaas u jeedaa ma fahanteen soo markaas Zeynabna iska daba maseerayaan ilmaha marka isku xigaan saas oo iska daba maseerayaan marka Zeynabna waxa u soo qaada iyadana farastaasaytii si hadhow aysan asaga u qabsanin uma seerin soo marka asaga waxa uu soo waday inuu dareemo inuu burus soo gadanayo ma fahanteen si uu u dareemo yani hobbigiisa uu ahay inuu burus maanta dhan uu wato wax uu ku kabiyo marka riyadiisa u rumeynaya ma fahanteen buruskiisa soo doontay waa soo adeegtay ma fahanteen maasha Allah alaabtiisa soo wataa meeshaan marka wuxuu ku arkeen gaariyaashaneeti mootadaas iyo baaskiilada meesha yaala aan laga celin waayo haddana mootadii uu saaran yahay kaala ka dejiye ma fahanteen marka buruskina waa xaraysta alaabta kalena waa raba niyo soo baxan fundiya tahay alaabta soo doonato lagu qaadee na soo wadi ma fahanteen soo marka waa soo baxnay haddana waxaa imaanay Naivas imaanay dhinacan kaleeto
meeshas wixii aan ka wada hadaa kasoo heli lahay meeshaan ka laaban lahay laakiin waa kasoo waayey meeshaana imaaday meeshaana waxaa kasoo doonay buraashada ilmaha ay ku cadeysan lahaayeen iyo daawadoodii ayaa soo doonay mafahanteen soo marka hadda meeshaan buraashadii ayaa ka baxbaxsanooya waaba u fadhiistay waayo ayaga waxay dhigeen qaybta ugu hooseysay dhigeen mafahanteen soo buraash kasta iskaagama qaado mid kasta iyo da-diisa waa mafahanteen ilmaha ilkaha dhacsada oo ilkaha u dhaceen iyo kuwa ilkaha dhacsanno oo ilkahooda weli aan u dhicin mafahanteen ay kala yihiin 2 sano ilaa 5 sano 6 sano iyo wixii ka koreeya saasay ugu kala qoran yihiin soo kuwaas softiga ah usoo qaadaa mafahanteen kaasay isxamili karaan maayne buraash kasta miskaaga soo qaado marka saasaa u fadhiistay saasaa u fiirfiirinaya mafahanteen saliinka hadda aan carfisanayana aad u fiican yahay maxaa la dhahay ilmaha korkooda shucaaca leh iyo maxaa la dhahay meelaha oo boogta iyo faruuraha qalalan iyo aad ugu fiican yahay mafahanteen intan waxaa kasoo raadiyay flaxseed maba u yaalabo waxaa mariyaa timaha marsanaa mafahanteen maba u yaala ayaga isku haleynayay hadee waan kasoo tagay dhinacan saliida imaada saliida meelahan ka fiirsanooya waayo saliida ayaga go-da mafahanteen midda seriiska soo qaatay labadan beri inaan ku moodmoodaa rabaa inta adeega bisha kasoo gadanayo waxaa kaloo u xiisay salbuuko mafahanteen salbuuko waa jeclahay ani sida ramadaankii oo dhan salbuuko mala cunin mafahanteen waa u xiisay marka salbuukaa hore usoo qaatay sooraan soo qaatay reykoo soo qaatay yacni ilaahay amarkiis waxaa ahay dadka salbuukada jecel habeenkiina cashada waxaaba jeclahayba cambuulo inay ahaato cambuulo nooc kasto cambuulo inaa cashada ka dhigaa jeclahay badanaa mararka qaarkiis rooti iyo waxaas waa duwaa laakiin inta ugu badan waxaan jeclahay cambuulada mafahanteen sida salbuukada camal digirta iyo galeyda digirta iyo bariiska digirta iyo qamadiga falfaliirta yacni casho markay noqoto waxaa jeclahay kuwaas inaa isku bedelo mafahanteen abkee digir oo dhan aan jeclahay malawax iyo waxyaabahaas iyo rooti iyo ilmaha dartooda inaan u sameeyo maahine aniga digirta aad u jeclahay mafahanteen abu maxamedna ila mid waaye marka waxa waaye ilmaha hadii ku joogaana sometimes ilmaha fiirinayo waxay ayaga rabaana kula weynaanayo mafahanteen soo marka hadda lacagtii soo dhiibo waa soo baxnay alaabteedii kale waa soo qaatay bacdaas hilibaa iigu jiro waxaan ka cabsanaa inuu iga uro yacni meesha waa kasoo degdegooya mafahanteen orodaa ku jiraa marka hadda waa soo baxay waxaa soo raacnay tugtugteena sakariye buruskiisa waa wataa waa faraxsan yahay mafahanteen aad u degsaday aad u farxay mafahanteen burusa usoo gaday maanta marka sakariye cadde ani maanta wixii ka dambeeya waa kala nasanayna maama burus soo deji damba ma jirto mafahanteen buruskiisa waa wataa ilmaha waxa waaye xataa hadday yar yihiin wixii markaas ay u baahan yihiin ama ay tamaninayaan haddaaba awoodi kartid haddaa u keentid aaday ugu farxayaan mafahanteen haddana aawadid oo meeshii aageysid aaday ugu sii farxayaan marka hadda alxamdulilah waa soo baxnay waxaan soo aadnay dhinacaasi gurigeena usoo soconnaa ilaahay inta oolaad haysato ilaahay ha u ziyaadiyo oo ha u daayo oo baari ha aga dhigo intaan uwad haysanina ilaahay waxaan ka baryayaa uwad wanaagsan baariyaal ilaahay inuu siiyo mafahanteen waayo oolaada sideeda waa nicmo isla waqti xaadirkaasna waa imtixaan mafahanteen qofku ilaahay siiyeyna uma uusan siinin jecel uu jecel yahay midka laga qadiyeyna neceb uu neceb yahay agama uusan qadinin mafahanteen labadaba waa imtixaaman yihiin kan la siiyeyna waa imtixaaman yahay kan aan la siininna waa imtixaaman yahay mafahanteen soo ilaahay hanaga dhigo kuwa imtixaankaas ku baaso oo maxaa la dhahayeen ku samro mas-uuliyadoodana kuwa kasoo baxo allah naga dhigo akhlaaqdooda tarbiyeyntooda diintooda iyo caqiidadooda kuwa toosiya allah naga dhigo ilaahay hadduusan garab nagu siinin anaga keligeena ma awoodi karno mafahanteen waarid kasto hadduu la gaashada ilmihiisa ilaahayna wuu u toosinayaa hadda guriga ayaan imaaday hooyo ayaan furaha ka qaadanaya maryam ruuxi iyo maxamed nuur iyo zaynab degana inta ku jiraan marka albaabka alwaax wuu u furan yahay kor ayaa aga qufulay mafahanteen marka hooyana kor ayay ka fiirinaysay soo gurigooda iska fadhiyaan taleefanadooda iska haystaan mafahanteen waayo cunuga markaa ka tegaysa inaa wax ku mashquulisid waaye haddii kalema oo cunug le iska fadhinaayo ilaa ka tagtid ka imaatid ma jiro mafahanteen oo mashquulsan yihiin zaynabna waxaa u keenay farasteeda waa iska baashaalayso iskaaga faraxsan tahay iyadana
maxaa la dhahayeen meeshaan ku wadoodanaysaa hoos kariya cadda ku soo haray buruskiisa hadda u furfurooya ma fahanteen jaabana shaqada waa bilaawatay aad uu faraxsan yahay buruskiisa miiskaasa hadda la ii toosinoya ma fahanteen fundiira ii jooga allah ii dhaafo already shaqadiisu gala asaga ma fahanteen insha Allah walaalaha qaaliga aad iyo aad u mahadsantihiin vlogan quruxda badanna waxaa iga duubay kaamiramankayga xaajigayga Abu Maxamed ma fahanteen asaga ayaa u wehelinaya vlogan quruxda badan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ilaahay khayr badan ha siiyo idinkana aad iyo aad u mahadsantihiin inta aynu muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono waxaa idin leeyahay iskaashato ma kufto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.